بسم الله الرحمن الرحيم دعوة يا تاريخ ما أنت عشان تمرك بيش لبعض لواتن الليلة في ورقة هو وين جارعنا حسد كالوصل يبغين يراش يا نبينا عوا بس هذا هل كان وبطل يجي بكلنا على ستونفور بوستي دعوة إحنا نقبل ورقة سنة حقيقة دولة راشية وحل شيء إذا ما تقدر إذا كلا بحث حدود إلى الذين سوشي مدحينها دولة راشية لكن مدحينها دولة يبغين وهذه maanta goordhaweyd ayaa sheegay in dalkiisa la qabsan doono maalinta Britol oo Arbacada intii toban bisha ku beegan tahay mar la weydiiyay madaxweynaha lahaa shir wasiiradiisa ayaa waxa lagu yiri madaxweyne yaa arrintaas ka maqashay maxaa caddaynaysaa wuxuu ku jawaabay waa iska ciyaaraya waa kaftan ayaga tahay laakiin kaftigiisa 13 dowlad ayaa wadanka uga baxay shacabka uga baxay dowladda Hindiya waxay ku dhawaaqday in kala soo baxayso 10,000 oo arday oo ka jirta dalka Ukraine sidoo kale wasiirka gaashaandhigga dowladda Ruushka ayaa asaguna sheegay in halkaas ay u joogeen exercise ama dhowrsis military xuduudda la wadaagaan dalka Ukraine wuxuuna sheegay in ciidamadoodii ay ka soo daaburayaan dhinacaas qaarna maanta kala soo baxeen hadal ka soo yeeray saraakiisha ugu shaqeeya midowga Yurub NATO ayaa arrinka beeniyay waxaana dhahay lama aamini karo hadalka ka soo yeeray dowladda Ruushka daawada halkan laga socotaa marka YouTube ku leenahay madaxweynaha dowladda Ruushka ayaa maanta soo dhaweyn u sameeyay dhigiisa dalka Jarmalka waxaana ka hadlayaan xisbiga ka hadlaya Ukraine iyo Ruushka madaxweyne Putin ayaa waxyaalo badan kala disgareeyay ama kala hadlayay رئيس الوزراء دالك جرمالكا waxaan isku afgartay in xaaladda la qabatay diblomaasiyadda lagu dhameeyo laakiin ninka ugu sarreeya dowladda NATO ama dowladaha xubnaha ka NATO ururkaas ayaa Mr James Reed ayaa wuxuu sheegay maanta in hadalka ka soo yeeray dowladda Ruushka aan la aqbali karin wuxuuna sheegay in Putin hadalkiisu yahay hadal ka fog runta laakiinse Mr James ayaa ku soo diray haddii ay arrinta dhabta ah oo ciidamada ka daabulayaan xuduudaha la wadaagaan Ukraine ay rumaysan karaan waayo wuxuu sheegay ilaa hadda in ay dhinacooda sahan war xaqiiqo oo ku saleysan in ciidamadooda ay kala baxayaan Ruushka xuduudaha Ukraine daawada halkan nagala socotaan barta YouTube ku leenahay laakiinse ila u dhow dowladda Ruushka waxay xaqiijinayaan in saraakiisha ugu weyn ee Ruushka ilaa hadda lagu tibinayo in ciidamadooda ay halka kala soo baxayaan saraakiisha sare oo hadashay dowladaha midowga Yurubna waxay sheegayaan in hadalka ka soo yeeray madaxweynaha Ruushka iyo shirkiisa gaashaandhigga in aan hadalka marnaba la aamini karin uu doonayo Ruushka inuu qabsado Ukraine daawada dowladda Mareykanka saraakiisha sare u sareysa wiiga hore waxay sheegeen iyo wiiga dambe in 16 bisha maalinta Arbacada ama wiiga ku xiga la qabsan doono Ukraine taas oo madaxweynaha dowladda Ukraine uu maanta u sheegay si hadalka isku caday in wadankiisa la qabsan doono Britol oo Arbacada waxaan sugnaa oo maalinka beriya iyo maalmaha ka dambeeya sidii halka uu dhab ka yahay dowladda Ruushka ka soo yeeray oo ah in ciidamadooda ay ka daabulayaan xuduudda waa la arki doonaa waan loo joogaa laakiin Central-ka ayaa maanta soo bandhigay in aysan wax ciidamo ka qaadin halkaas ciidamada fara badan ay ku soo dareen kuwii hore meesha joogay waxay halkaas soo dhigeen dadka diyaaradaha gantaalada ka hortaga gantaalada S500 S500 S300 iyo hubka waaweyn dadka diyaaradaha waxay kale halkaas soo dhigeen qoryaha madaafiicda taangiyada ciidamo ku qalabaysan hubkii nooca ugu dambeeyay xuduudaha Belarus waxay soo dhaween maanta kale ciidamo aad u fara badan 30 ayaa halka jirtay waxa ku soo dareen baa la sheegay ilaa 20 kale Central-ka waxa xaqiijinaya in Ruushku isku diyaarinayo dagaal warku uu sheegay oo dhahaya ciidamada kala baxayna halkaas ay tahay Ukraine iyo Ben Abur daawada waxaan sugnaa waa maalinka beriya iyo wiiga ku xiga ama intuu soo dhamaanayo oo lagu qabanayo China xaaladdu ma sahlana Ruushkana waxa ka baahan in Ukraine qabsado waayo haddii Ukraine Ruushku uu saa ku daayay waxayna ka mid noqon doontaa midowga Yurub iyo NATO Ruushkana wuxuu leeyahay amniga ayaa khatar ku sugan haddii Ukraine ay ka mid noqoto NATO iyo midowga Yurub daawayaal sida lagu yaqaan Putin waa nin xaaladiisu ay badan yihiin dowladda adduunka ma sheegto xilliga ay dagaal qaadayso ama inay wadanka qabsan doonto waxaan filnaba waa saacadaha soo socda la caawa la bari iyo wararka ugu dambeeyana waa niisoo gudbin doonaa iminka nagala socda daawayaal meel walba joogtaan marka barta YouTube ku leenahay Calaamad 24 Post ana maasintiin